بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي دمانتين وإن سلام ملك صدني دافيد كجوكتان ومركلي ولا شنفيل سنكاهي أحلى قصة دين امتحان هذا إهاد خيبتي سدحاد ما شاء الله تبارك الرحمن سوري دواد ما شاء الله. ما أنت نوحن كدحلينا قيصدان عدو إلهي إد مبارني ماذا ووالد كباري قلوي هاي اللهم استعان إيو horey videogeega igu horeeyay bahalkii gabadhan qisada aan kasoo duubay ahayd abaayo waxyaabo qalad yaroo dhacay oo ahay inaan iri hooyadeed iyo aabaheed way dhinteen waayo waalidkay waxaan mooday waalidkay waa dhinteen inay igu tiri hadda marka codkan dambe oo aan dhageysanayay wallaahi markaan ugu tago waan yaabo waxaan isiri wallaahi hadde waan yaabo waxaan isiri ma adiga u qaadatay inay hooyadeeda dhimatay waan baxay codka dambe ku laabtay marka wabada waalidkay igu leedahay ma ogi hooyadii aabahay ima kala saarin marka waxaan rabaa hadda halkan inaan idinkaga sheego qisadii iyo sidee u dhacday waalidkeed halkan soo geli doono insha Allah barnaamijka dhexdiisa maadaama gabadhii 3 sano ayadoo jirto gabar walaasheeda soo korisay waxaan isir oo waliba aabaheed dhalay abaayo waan ku laabtay telefoonka u diray ma sha Allah gabdho badan oo su'aalo ka soo weydiiyeen waa u sheegay oo sida saliga nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ee akhriso kaleetood iyo maadaama ay 12 jeer ku riyooto nabiga kaleey sallallahu wasallam ee riyo ku aragtay iyo nimcooyin fara badan ay kala kulantay inkastoo aniga aan soo wada sheegin macnaha oo hal riyooyinka ee rasuulka kaleey sallallahu wasallam ee ku riyooto aan ka wareysanin haddana markay arkeen saliga nabiga kaleey sallallahu wasallam inay badin jirtay sidii uu akhrin jirtay su'aalo leega soo weydiiyay luuqa qaybta WhatsApp-ka igu soo weydiiyay WhatsApp-kayga gabdhaha haysteen ugu dhaabay si akhrin jirtay isoo sharax haddana aniga ahaanteyda su'aal u baahday oo waxa ugu baahday waxay ahayd waxaan xaqiiqsanayay hooyada dhashay inay tahay abaayo iyo inay tahay hooyadii odageeda xaajigeeda hore dhashay marka waan soo xaqiiqsaday abaayo markuu ii soo sharaxday anyway hooyadeed gabadhan 3 sano iyadoo jirtay miskareysa macnaha ay la noolaanin oo walaasheed ay soo korsatay sida ay kugu soo sheego hore abaayo marka walaasheed dib ka qabsado waa idin soo sharaxay wixii su'aal hada u baahatiin commentiga ugu soo qor abaayooyinka inta badan qisooyinkooda aan soo gudbiyay inta badan waligood ba aan dhahay commentiga ka akhristaan kama sha Allah tabaarak rahmaan una soo duceeyay markastaba gabdhaha oo qeyrkana la qaybsanayo ilaa kheyr hayna siiyo qaladkan wuxuu ka dhacay aniga oo videoyaasha codadka aan dhameysanin oo ka dhacay waa idin karaal gelinaya abaay ma ahan codkan hadda aan furay waxaan ugu tagay qisadii mucjisada iyadan ahayd mucjisada wadatay ee kala kulantay hooyadeed baariga markay u noqotay abaay waxay dhahday qisadan oo bilaabaya bismillah abaay waxay dhahday hooyaday waxay soo gashay Mareykanka marka waxay tiri qisadan ka qaadanayna taariikhdii iyo wixii waa un kulay un abaayo oo meel kala gobol ay kala degan yihiin marka hooyada iyo abaayo gabadhna la qaybsanaysa qisada hooyadeed ayada waxay dhahday hooyaday xanuunsatay markay xanuunsatay maaragtay sheeg waan baxay cunug yar waxaa markaas siistay tir 2 bilood ah oo dhalanay 2 bilood dhalanay wallaahi waan ka tagay tiri hooyaday u tagay 3 bilood ee xanuunsaneeday tir sir saarneeday marka waxay tiri waan la joogay waan intaasna waxay tiri dhakhtarka geey meel walba la tag isbitaal la gal hooyo marka dambe way dhimatay tiri hooyaday markaan waxay tiri soo duugtay oo waxay tiri soo gacanteeda ku soo garfanay oo ka soo laabtay gurigeyga u soo laabtay tiri 3 bilood reerka ka soo maqnay cunug yarka 2 bilood dhalanay meeshii uga soo tagtay hooyadeeda u soo baxday waa waajibkeeda soo gudatay way soo laabatay waxay dhahday maalmaha kamid ah habeenada kamid ah waxaan ku riyooday dhahday abaayo kor cirka meel banaan taagnaayay tir aan ku riyoona riyada waa kor waxa ka soo baxay tiri wax aad moodo flower ama mataqaanay wadne ama marna loof isku bedelaa marna flower ubax marna loof isku bedelay kadib waxay tiri wax diyaarad ah mooda soo gooxay waxa moodaa tiri diyaarad waa isku naxay wax soo socdo marka waxay dhahday meeshii oo wixii gadudna ay soo socday kor cirka korkiisa waa ay joogeen waxay tagay dhahday diyaaradda aad moodo diyaaradna ma ahayn tirnino wahay waxay tiri bahalka uu soo dajiyay dhulkoo yimiday wuxuu ugu yiri tiri hoo adaa iskala waa isku naxay
waxaa is iriyay tiri maxaa dhacay meesha gacanta adaa iskale qabso ugu yiri tiri waa gift ilaahay xaqiis kaaga yimid waxay tiri waa quraan wuxuu leeyahay tiri kitaabka camal oo leeyahay tiri wixii geesaha quraan ugu qoran gabadha kitaabka ma haya qisadii riyadii gabadha kitaabka ma haya ku qaldamin gabadha kitaabka qisadeeda way noo dhiman tahay gabadha abaayada sijaayado oo commentiga la igu soo qoro video gabadhaas commentiga aan ka helay gabar waxa waa ayadan abaayo Mareykanka ila degan ayadan commentigan abaay gabar ii soo dhigtay igu tiri abaayo qisaan rabna inaan kula wadaagno oo gabadhi markay sijaayad ka tagto ay sijaayad si istaagayso u sii dukanayso sijaayadii sawirradooda xataa la soo diray riyadan kitaabka quraanka lagu siiyay ma ahan gabadhaas isku qaldan gabadhan waxa waaye dadkii hore qisada ula socdaan sheegay gabadhan waa gabar kale gooni ah abaayo ayadana marka waxay dhahday abaayo waxaa tiri wuxuu ii keenay tiri ninkii oo soo degay wuxuu ii keenay tiri kitaabka wax la eg oo geesaha quraan ugu qoran yahay dhaxdana ubax ka yahay qurux badan gacanta qabso ugu yiri tiri hal gacan soo taagto qabso markaa maaga oo iga diiday tiri wuxuu ugu yiri tiri labada gacmood ku qabo labada gacmood aan ku qabtay dhada baayo oo iga tagay dhahda waxay tiri ninkaas uu iimaan jiray riyaan ku arki jiray dhahda waa soo baxay dhahday waa la joogay uuraan yeeshtay 7 bilood uurka anigoo leh oo haddana ii yimid tiri igu yimid wuxuu igu yiri tiri 7 magac oo magacyada ilaahay asmaa al-husnaa kamid ah oo isiiyay dhahday 7daas magac wuxuu igu yiri tiri akhriso kiiba 100 ka akhriso resultigana waa arkay natiijadana calishaan waa arkaysaa insha Allah waayaha eriyay tiri magacyadii waa xifdiyay muddo dhan waxay tiri akhrinay waa soo baxay dhahday waxaa imid tiri abaayo cod idin soo duubi doontaa insha Allah taala bidla karim qisadeeda markaan dhameeyo oo 12 jeer nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam ku riyootay qisooyinkeeda dhan markaan dhameeyo abaayo ayada idin soo duubi doonto oo idin la soo hadli doonto oo waxyaabo dhiirigelin idin soo sheegi doonto insha Allah habiyeen ku tahay abaayo insha Allah taala bidla karim inay sameyso idin soo duubto codkeeda idin ku soo gaarsiiso insha Allah waxa u qabtiin oo dhan su'aalo u diyaariya intuu socdo maxaa la dhahayaa qisooyinkeeda kadibna hadhow insha Allah buugay ku qoranaysaa waan idin soo jawaabaysaa insha Allah taala bidna kariman ana markaas leef soo fariisana insha Allah taala bidna kariman telefonka ka soo xiraayo باذن الله واحد الاحد ان شاء الله marka abaayo wuxuu tiri magacyada ilaahay 7 magac oo asmaa al-husnaa kamid ahay u siiyay wuxuu ugu yiri tiri 7 magac akhriso kiiba 100 ka akhriso resultigana natiijadana waa heli doontaa insha Allah waa dhalay dhahday wiilaan dhalay wiilka markaan dhalay 5 habeen markuu dhalanay oo waxay tiri cunugii uu caana cabeeynin oo si intaqaan aan xusaayo baby roll la dhalay naas nuugeen caana cabeeynin waa dareemi kartiin oo murugsanahay dhahday oo haddana nikri uu imaad wuxuu ugu dhahay tiri hay ma heshay giftiga ilaahay ku siiyay markaasaan ku iri tiri maya markaas ugu yiri tiri maxaa u dafiraysaa si kul igu dhahay tiri markaasaan ku iri tiri mehel anoo naxsan u gariiraayo markaas ugu dhahday wuxuu soo qabsay tiri wax oo laser camal ah oo ifay toosh camal ah darbiga ku qabta maxaa aragtaa ugu dhahay tiri markaasaan ku iri tiri magaca Allah marka meesha ku arkay tiri Allah magaciisa cunug yarka u tagay tiri afkiisu kala furay tiri maxaa aragtaa ugu yiri tiri markaasaan ku iri tiri waa naxay magaca Allah ku qornay tiri carabkiisa afka si fiican u kala qaaday tiri maxaa ku aragtaa markaasaan ku iri tiri carabka hoostiisa waaya magaca Allah aan ku arkay tiri Allah ayaan ku arkaan ku iri dhagtiisa soo qabtay tiri ku ifii wuxuu ku yiri tiri dhagtiisa marka waxa moodaa tiri inay dilaacsan tahay sak tahay sarsaran tahay aan moodayo tiri oo caadi loo arkaayo marka ku qabtay waxay noqday tiri Allah markaas uu yiri tiri maxaa aragtaa markaasaan ku iri tiri magaca Allah ayaan arkaa waxay tiri wuu iga tagay markuu iga tagay oo may wuxuu ugu yiri tiri hadaba waa gift Ilaahay ku siiyay waxaan ku heshay baarinimada waalidka a giftigan ku heshay abay waxay la qaybsan doontaa insha Allah baarinimada oo soojkeeda qiso cajiib jiddan ah gabadhan gabar waxa ma taqaan qisadeeda la wada ogyahay waa inta xaafadeena degan oo dhan
abaayo ma ahana qof oo maaragtay sheeg iska sheekeynayso xaqiiqatan dad badan ay yaqaanaan oo maaragtay maasha Allah tabaaraka raxmaan hadan diris ahaan lahayn abaayo waxaan markay ku dhacaan waxaan aqoon iskuma lahayn haddana waqti badan waxayba ka degan tahay gobol kale oo naga degtay laakiin maamooyinkii dadkii ay la joogtay ee barigaas ag deganeed wixii dhan ay yaqaanaan maasha Allah qisadeeda waa lahaaya maasha Allah ilaahay oo barakeeyo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala boqorka ah gurigeeda nafteeda awlaadeeda Allah barakeeyo dhamaan inta dhageysanayso codkii gaari doonana Allah u barakeeyo guryahooda iyo naftooda ilaahay oo xifdiyo gurihiina naftiina Allah idin xifdiyo keygana Allah idin xifdiyo awlaadeeda nafteeda iyo soojkeyga waalidkeygaba maasha Allah marka walaalahayga qaaliga ah iyo walaalahaygaba waxaan idin sheegayaa abaay waxay dhahday sidiyaa waxay dhahday oo iiga tagay dhahday markuu ugu yiri hadaba waa gifti lagu siiyey oo ilaahay kaaga timiday oona ku heshay baarinimada ku heshaa leegu dhahay tir waa iiga tagay dhahday waa soo kacay tir hurdaanka soo kacay waan waxaan isiri tir maxaa dhacay cunugan ku booday tir dhig kafiir carab kafiir aan bilaabay tir mise cunuga shanta habeenba wuxuu la xalacabi waayay oo la cuni waayay carabkiisa ku dhagan inta wuxuu ku dhagan yahay ciridka maaragtay ilkaha hoostooda oo ku dhagan yahay carabka marka waa soo baxnay tiri dhakhtarka la geeyay surgery lagu sameeyay amaliyad lagu sameeyay si carabkiisa uu wax uga cabi karo hadda wiilkayga waxa tir wiil weyn waa maasha Allah tabaaraka raxmaan cunug aad ugu ismaartsan waa ilmahayga labada wiil asigii reeda asoo gudan asigoo aan dhalay iyo kambo labadoodaba labada ugu ismaartsan ilmaha ugu aqliga badan ugu fariidsan you can imagine dhahday ma malayn karaysay dhahday sidoo uu ilmahaas maasha Allah tabaaraka raxmaan ay yihiin tiri maasha Allah ilmo roon waa hadda ilaahay subxaanahu wa ta'aala hu barakeeyo ha xifdiyo qisadaas halkaasaan ku joojinaynaa halkaan qisada xigto iyo hadduu ilaahay idma abaayo waxay ay kala kulantay soojkeeda ambaba riyooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah aanoo bilaabayaa 11 jeer ee abaayo ku riyoota nabiga calayhi salaatu wasalaam ee riyo ku aragtay dhidheel maahan waxay dhahdeen waan badin jiray saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam walaahi waxaan isla hadlaynay maanta